السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم أصحابتي ku xiran channelkeena dhiirigali naftaada. maanta waxaynu ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan waa maxay kalsoonida. sida tan waxaad u baahan tahay in aad ogaato ama aad kala saarto farqiga u dhaxeeya isku kalsoonaanta dhabta ah iyo isku kalsoonaanta qiyaaliga ah. haddii aynu wax ka soo qaadano isku kalsoonaanta qiyaaliga ah waa midda qofka nafsadiisa been u sheegay shakhsiyadiisa been isku sheega. مثلا waxaan ma qaban kartid, sidee ku qaban kartaa, ma awooda inaad qabato iyo wixii la midka ah. qofka asigoo isku day sameeynin ayuu markiiba sawir ka qaadanayaa in uusan qaban karin waxaan. haddii uu even isku dayo inuu qabto waxaan ama sheegan in uu wax ka qabto waa laga yaabaa 90% in uu ka guul gaaro, laakiin ugu horey naftiisa ayaaba checkpoint u dhigatay oo ka dhaadhicisay in uusan waxba qaban karin. qofkaasi nafsadiisa ayuu qiyaali u sheegay oo nafsadiisa kuma kalsoona. isku kalsoonaanta dhabta ah waa midda qofka nafsadiisa sare u qaada sabab u noqota in uu sameeyo isku day badan asigoo ugu dambeyn noqda mid guuleystay. muhiimadda dhabta ah waxay tahay inaad naftaada aaminto oo aad ka dhaadhiciso wax waliba in aad qaban karto haddii aad isku daydo. fiiro gaar ah waa inaad awooddo oo aad kala saarto isku kalsoonaanta naftaada iyo ujeedooyinka ka dambeeya ee ka hor istaagi kara inaad fuliso rabitaankaaga ah inaad faraxdo. adigoo adeegsanaya habab la isku dayay oo la tijaabiyay ayaad markaa dhisi kartaa oo xoojin kartaa isku kalsoonaanta naftaada si ay u ahaato mid degan oo muddo dheer socota. fadlan mowduucan waxaan uga hadlaynay waa maxay kalsoonida naftaada. haddii aad ka heshay fadlan muuqaalka subscribe saar, like garay videoga u share garay asxaabtaada si ay uga faa'iideystaan. insha Allah waa inuu muuqaalka xiga. Ramadaan Kariim. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.